السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنو ونكسن داوديال meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay geeyiga Soomaaliya wararka degdega oo aan idin hayana waxa qayb ka noqon doona ciidanka beesha Ciise ee ku sugan dawlad deegaanka Soomaalida oo dhammaan hubkii iyo gaadiidka ay lahaayeen kala soo baxay aagaasi waxayna intooda badan hadda yimaadeen deegaanka Bolol iyo sidoo kale deegaanka Ceelgaal dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhanka ciidamada ah iyo isku dhacyo ayaa laga cabsi qabaa inay mar kale ka dhacaan deegaanka Habaas haddaba sidoo kale maxaa saaka aroortii oo ka dhacay deegaanka Xariida waxaan ku soo gudbin doonaa faahfaahinta wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo laga dareemayo xadka Soomaaliland iyo dawlad deegaanka Soomaalida iyo beesha Ciise oo go'aan ku gaartay inay qabsato guud ahaan gobolka Gado inta ay beesha Samaroon kaga sugan yihiin sidoo kale waxaan ku soo gudbin doonaa hadii Allah uu dalo waraal ka noqdo ugaaska guud ee beesha Ciise oo diiday inuu qaabilo odayaal ka socday beesha Samaroon oo rabay inay xaaladda dejiyaan wuxuuna ugaasku u sheegay in geeri iyo nolol midna aysan kula noolaan doonin beesha Ciise haddaba waxaan ku soo gudbin doonaa kulan darbaaxa ahaa oo ku dhacay odayaal dhaqameed ka socday beesha Samaroon iyo faahfaahintiisa waxaan kale ku soo gudbin doonaa madaxweyne ku-xigeenka waqooyi bari abwaan Cabdirashiid Jibriil oo qaatay go'aan dagaal oo ka dhanna Soomaaliland isagoo sheegay in ceergaabo uu si degdeg ah u soo qaban doono qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haddii taa markii kuugu horeysayna ku soo biri daraja media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacnay ee soo dhawow daawade qodobkan ugu horeeya ayaan ku bilaabayaa dhammaan ciidankii beesha Ciise ee ku sugnaa dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan Diridhaba iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxa ay soo galeen gobolka Awdal waxayna hadda joogaan inta u dhaxaysa Bolol Habaas Ceelgaal Saylac Lughaye iyo eeriyada ku taxan dhanka badda oo la aaminsan yahay inay tahay halka ugu badan oo halka ciidankaasi la geeyay beesha Ciise ciidankoodu dabcan waxay awal ku fidsanaayeen deegaano fara badan oo kamid ah gobolka waa dawlad deegaanka Soomaalida laakiin hadda ciidankii dawlad deegaanka ku sugnaa waa ay soo baxeen waxayna wararka iyo macluumaadku tilmaamayaan in laga cabsi qabo inay hal mar qaadaan weerar cir iyo dhul ah oo ka dhanna beesha taagta daran ee Samaroon waxaan haddaba ogaaday oo aan ururiyay xog dhammaystiran oo ku aadan deegaanada hadda ay ku sugan yihiin ciidanka beesha Ciise halka ay joogaan sidoo kale ciidanka beesha Samaroon hub la sheegay in siyaabo kala duwan uu u gaaray ciidanka beesha Ciise ayaan dhammaan xog ururin ku sameeyay haddaba waxaan ogaaday intii aan warbixintan baarayay in ciidanka beesha Ciise dhinac walba ay ka diyaar garoobeen haday noqoto dhanka tasiilaadka haday noqoto dhanka hubka haday noqoto dhanka askarta haday noqoto dhanka agabka kale haday noqoto dhanka isgaarsiinta haday noqoto dhanka xerooyinka haday noqoto dhanka kala amar qaadashada dhammaan ciidanka beesha Ciise markan diyaar ay noqdeen haddaba su'aashaad isweydiinayso waxay tahay yaasiyo hubka beesha Ciise yaas u fududeeyay maadaama halkaas laba dawladood oo Djibouti iyo sidoo kale Ethiopia ay ka jirto sidee hub ka yimid Djibouti uu dawlad deegaanka u soo maraya gobolka Awdal u imaanaya haddaba su'aasha jawaabteeda ayaan ku siinayaa waxaad ogaataa beesha Ciise inay ku sugan tahay deegaano fara badan oo ka tirsan ama ku yaala dawlad deegaanka Soomaalida sidoo kale waxay ku sugan yihiin dalka Djibouti waxay sidoo kale joogaan dhinacaas iyo Oromada iyo Amxaaradana waa ay la dagaan nimankan ninka odayga ah ee ugaaska ah waa nin ku fiican saan hore idin kugu sheegay luqadda af Soomaaliga Ingiriiska Carabiga Xabashida iyo sidoo kale af Faransiiska ayuu ninkan ku hadli karaa waa nin marka galaangal badan oo si weyn u dhaxgalay dawlad deegaanka iyo sidoo kale cid walba oo uu isleeyahay aleelaha ciidan waxbaad ka soo dhacsan kartaa hub la sheegay in xili dambe uu ka yimid deegaano ka tirsan Djibouti ayaa waxa la leeyahay waxa uu yimid dhinacaas iyo gobolka Awdal waxa haddaba hubkaasi baarista aan ku ogaaday in uu yahay hubkii ugu dambeeyay oo dawladda Djibouti ay lahayd isla markaana ahaa hubkii la farsameeyay iyadoo hubkan la sheegay inuu ka mid yahay hubabkii ugu casirsanaa inta la xasuusto oo dawladda dalka Djibouti ay farsamaysay
saan hore idinkugu sheegay Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu wax badan xeeriyay wax badan yacni wuxuu sameeyay wax badan oo ku aadan in wada hadal iyo wada xaajood lagu dhameeyo xiisada u dhaxaysa Ciise iyo sidoo kale Samaroon warkiisa waxba waa laga soo qaadi waayay waxaana ay sheekadu tagtay in ay xaaladu noqoto mid faraha ka baxday xeerkii buuga Ciise ayaa sidoo kale la soo bandhigi waayay oo ay noqotay in lagu kala kaco xeerka buuga Ciise maadaama ay ogolaan weeday Somaliland iyadoo beesha Samaroon markaas u xaglinaysa in xeerka buuga Ciise la soo bandhigo waxaa jirtay marka aragti ay soo jeediyeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Samaroon kuwaas oo sheegay in ay bal rabaan in xaaladda la dejiyo laakiin ugaaska guud ee beesha Ciise ayaa la sheegay in uu diiday warkaasi isagoo sheegay in ay tallaabo ka qaadi doonaan wax walba ama cid walba oo isku dayda in ay carqaladayso nabadda iyo xasiloonida ka jirta gobolka saraakiil sarsare oo aan la hadalnay si aan bal wax uga weydiino dhacdooyinada halkan ka jira waxay tilmaameen beesha Ciise go'aanka ay gaartay in aaya ka tashi liskugu laabta maahay inuusan ahayn go'aan laga laaban karo sidaas si lamida waxa ay wararku tilmaamayaan in ugaaska guud ee Ciise uu amray ciidankii Diridhaba ku sugnaa waa dawlad deegaanka Soomaalida inay gudaha u soo galaan gobolka Awdal maadaama ay yihiin ciidanka xuduud ahaan ugu dhow oo gurmad ahaan u imaan kara Diridhaba ay ka soo baxeen xuduud ay soo mareen xagga badda ay soo mareen ugu dambeyn waxay yimaadeen magaalada la yiraahdo Ceelgaal waa saldhigga ugu weyn ciidanka waqooyi waa ciidanka beesha Ciise waana saldhig la aaminsan yahay inuu noqon doono midka ugu weyn markaas laga duqeeyo ciidanka beesha Samaroon haddaba saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka beesha Ciise qaarkood oo aan la hadlay balse aan wax uga weydiiyo sugnaanshaha wararka la xiriira dhacdooyinada halkaas ka jira qaarkood waxay ii sheegeen in beesha Ciise iyo beesha Samaroon hadda ay kala dhinteen wax wada hadal dambe inuusan jiri doonin hadda sheekadu ay noqoto ninkii xoog leh xaajadu u toostaa bay hadda taagan tahay yacni ninkii hub haysta ninka kale iska dhicin kara bay xaajadu u toostaa hadda halkaas ay sheekadu maraysaa wada hadal wal soo xirmeen Ismaaciil Cumar Geelle iyo ugaaska guud ee beesha Ciise waa ay kulmeen warbaahinta waa laga qariyay xataa golaha wasiirada iyo saraakiisha Djibouti waxa lagu amray inaysan kulanka ka hadli karin waxay labada nin isku afgarteen in xeerka buuga Ciise la soo bandhigo waa in ceebta xeerka yani ceebta saaran beesha la yiraahdo Ciise waa in horta heeriyada bal dhinac lagaga tuuraa oo xeerka buuga Ciise la soo bandhiga kadib laga wada hadlo waxyaabaha la isku hayo waxaan ogaanay Ismaaciil Cumar Geelle go'aankaasi inuu dhibo ugaaska Ciise ugaaskuna uu haysto kalsooni waayahay qodobadeena kale ayaynu eegaynaa odayaal dhaqameed isxilqaamay oo beesha Samaroon ah oo awalba aaminsanaa markii mudaharaadku ka dhacay magaalada Boorama in mudaharaadaas aysan habboonayn in halka ka dhacaan ayaa hadda waxa la soo warinay odayaasha inay telefoon u direen ugaaska guud ee Ciise waxay ku yiraahdeen ugaas waxaan rabnaa inaan dhexdhexaad ahaano xaaladda idinka iyo walaalahayaga Samaroon aan ku dhamayno wada hadal iyo wada xaajood ugaaska guud ee Ciise warka waa uu diiday wuxuu sheegay ilaa xeerka buuga Ciise laga ogolaanayo in uusan jiri doonin wada hadal ay la galaan beesha Samaroon taa bedelkeedana aan qaadayna buu yiri tallaabooyin military iyo tallaabooyin ka dhan ah cid walba oo isku dayda inay carqaladaysan nabadda iyo xasiloonida ay ku noolaanayaan beesha Ciise wuxuu yiri waxaan matalaa beel fac weyn oo degta dawlad deegaanka degta Djibouti degta Raas Kambooni ilaa Raas Caseer waa Soomaaliya Somaliland degta meelo far badan oo kamid ah geeyiga Soomaaliya degta in aniga beel yar oo Samaroon ah ay yiraahdaan ma soo bandhigaysa xeerka buuga Ciise habeenna aqbali maayo maalinna aqbali maayo xaajadu halkaasay tagtay muddo ku taag bay noqotay odayaashiina iyaga oo niyad jabsan bay telefoonka ka baxeen horeysaan idinkugu sheegay ninka la yiraahdo ugaas Mustafa waa ugaaska guud ee beesha Samaroon waa ugaaska guud ee beesha Ciise ugaaska guud ee beesha Ciise wuxuu sheegay in uu sanbalaha li doonin ba يعني يان لوجو إيمان يان لجله يان لجله هالين يان أنا يعني وحنا خسرنا وحجر يان لجله هالين با وحكوس عصم سمرون
taa beddelkeeda waa in lagala hadlo xeerka buugga ciise sida loo bandhigi lahaa maalinkii ay samaroonka ogolaadaan oo mujirku u soo laabto ayaan wada hadlaynaa dabcan dagaal ayuu markan diyaar garoobay watay Soomaalida ku maamahada ninkii xoog leh xaajada u toostaaye waanu arki doonaa bal ugaaska guud meeshu wax ku wada aanu garanaayo wallahi garanaayo meel wax ku wada waanu arki doonaa sida xaajadu noqoto laakiin hadda sida wax ku socdaan adiga daawanaya ama samaroon ah ama ciise ah walaalow xaajadu ma dhawa ugaaska guud ee beesha ciise wuxuu leeyahay xeerka buugga ciise waa in la soo bandhigo samaroonku waxay leeyihiin xeerka buugga ciise waxa ku jira qodobo oranaya deegaano kamida dhulka samaroon waxa iskale beesha ciise halkaas laga kala disan yahay Cabdiraxmaan Cirrana isna uu mashquulsan yahay oo meel kale ku mashquulsan yahay marka waxa laga cabsi qabaa in xaajadu ay faraha ka baxdo oo xataa ay tagto inay yiraahdaan beesha ciise waxaan dhisaynaa awdal state wallahi hadda weerarka xanta ah ee soo baxaya ee hadda banaanka yimid ayaa waxay leeyihiin ugaaskii guud ee beesha ciise xataa wuxuu leeyahay awdal state baan dhisayaa beesha samaroon ma aqaaniba awdal state baan dhisayaa waxa arrinka ay gala shaqeynaya Ismaaciil Cumar Geelle Mustafa Cagjarna diyaar buu u yahay arrintaasi sheekada halkaas maraysaa arrintu mindi ku taag bay noqotay sheekadu farahay ka baxday hadda siday wax ku socdaan hadii aan laga gaarin shalay muuqaalkii aan duubayna waan ku sheegay siday wax hadda wax ku socdaan hadii aan si degdeg ah looga gaarin xaajadu farahay ka baxaysaa markay xaajadu faraha ka baxdo oo la isku mandho oo la isdagaalo oo ay sheekadu tagto mid aan waxba laga qaban karin ay dad soo qaylin doonaan oo ay oran doonaan alla sidaan ma ahayno sidaan bay heedo waxay ahayd sheekada in xaggan loo rido oo xaggan inay noqoto oo يعني arrimo badan ayaa la leeyahay banaanka way imaan doonaan laakiin hadda bahash intay cusub tahay oo qabasho ay leedahay baa fiican in xaajadan oo kale lagu galo oo bal sheekada la soo gabagabeeyo ciise iyo samaroon kara way isku habar wacanayaan hadda sidan ogaaday labada dhinac ciise iyo samaroon anoo dhaxdhaxaad u ah oo sheekooyinkooda dhaxdhaxaadka hadana xog ururin aan sameeyay waxaan ku ogaaday beesha samaroon diyaar garow inuusan jirin ma ogi ma sheegi karaan beesha samaroon wax badan kama aqaani ma taya ahaan iyo tira ahaan iyo ciidan ahaan bay liidataa bal intiina aqoonta u leh waxaad iga soo jawaabtaan marka laga hadlayo ciise iyo samaroonka horta yaa badan ciidan ahaan markaan ka hadlayno ciidan ahaan dad ahaan markaan ka hadlayno iyo meelaha la kala dugo ciidan ahaan marka laga hadlayo ciise iyo samaroon yaa ciidan badan ciidan ahaan yaa badan bal adigu si cadiifad aysan kugu jirin oo sax bal uga jawaab hadii aadan aqoon de ma taqaanid hada marka aan dib u soo laabto mowduuceena siday hada xaaladu tahay hadii aan la helin gacan saddexaad oo ka madax banaan samaroon ciise iyo Somaliland hadaan la helin warkayga meel ku qora wallahi xaaladu farahay ka baxaysaa oo billahi farahay ka baxaysaa hadda biyuhu intaysan daadan baa waxa la yiraahdaa dab qabashay leeyihiin hadda intay xaajadu daba qabasho leedahay oo ay xaajadu ku kooban tahay xuduuda bahashu xuduuda haday ka talaabto faa'iido ma leh bahashu xuduuda intaysan ka talaabeen war hala daba qabto war cirro miirkaaga ha ku soo laabto cirro horta waxaan ba ola yaabayba meesha la isku dagaalaya ama colaadu ay ka taagan tahay wuxuu u diray yar la yiraahdo nimcaan gaxnuug وتليها عيدن كملتريga Somaliland inkastoo nin dhalinyaro uu yahay oo militariga u soo baxay hadana nin oday ah oo ka aqli badan oo 70 sano jir ah ama 80 sano jir ah oo dhaqan hogaamiya wiil yar oo 35 sano jir ah oo 40 aan gaarin ma hor fariisan karo war cirrow odayaashan ku ag fadhiya oo golaha guurtida ku jira oo golaha wakiilada ku jira Yaasiin Faratoor iyo odayaan golaha guurtida iska haysta iyo ragga u dir meesha ragga la xaajoon kara oo maahmaahayo ku tuuri kara oo u gardhigan kara oo xataa taariikhi dib u xasuusin kara meesha dad u dir laakiin odayaashan aad meesha wiilka dhalinyarada u diraysid ka daa ciise iyo samaroon halkaas aan uga baxayaa warkooda qodobadeena kale ayaynu jaleecaynaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka waqooyi bari abwaan Cabdirashiid Jibriil ayaa xalay kulan gaar ah waxa uu la qaatay saraakiil ka tirsan daraawiishta maamulka waqooyi bari kulanka waxaan ogaaday in intiisa badan diiradda lagu saaray qodobo waaweyn oo ay ka mid yihiin arrinta amniga iyo sidoo kale sidii loo qaban lahaa magaalada Cerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag
saraakiil sarsare oo aan la hadlay qaarkood waxay ii sheegeen in kulanka intii uu socday sidoo kale diiradda lagu saaray qodobo waaweyn oo masiirka iyo mustaqbalka taabanaya ilaa dhowr jeer ayaa la isku soo laalaabtay madaxweyne ku-xigeenka waqooyi bari ayaa u sheegay saraakiisha uu la kulmay in ay caqliyadoodu shaqayso oo u diyaar garoobaan in duulaan lagu qaado magaalada Cerigabo inta ay xiisadu ka dhex aloosan tahay ciisaha iyo samaroonka oo Soomaaliya